waa qaybtii labaad iyo barnaamijkeennii ku saabsanaa baraha bulshadu saamaynta ay yeesheen. Markan dambe baraha bulshadu way dhaafiyeen kaalintii ahayd bulshaynta, waxaanay isku beddeleen bara qofka xanuuno nafsi ah ku ridi kara. dhankiisii dabiiciga ahaa ee qofku rabayna waxa uu isku beddelay la falgalka dad aan la aqoon. waxay qofka si fudud ugu riixi kartaa inuu dhaleeceeyo qofka oo aanu ka dhowrin ereyada uu adeegsanayo, kol haddii aanay jirin weji dhigasho iyo xeerin midna. faahfaahinta beenaha iyo marin habaabintu waa ay 2 jibaarmeen, 5 jibaarmeen oo 10 jibaarmeen, sababtoo ah waxa fudud sida xogta loo heli karo iyo sida loo faafin karo. ma jirto cid aan xogta ay doonayso dadka kale la wadaagi karin, mana jiro tafatir iyo hubsasho la soo marin karo. waxa qof gaar ahi dadka kale la wadaagayo. in xaaladani faraha ka sii baxayso lagu ogaaday dhacdooyin dhowr ahaa iyo sida dadka baraha bulshadu dhigeen. tusaale dhowr ah sida ka bixitaankii Ingiriiska ee midowga Yurub iyo doorashadii Trump ee hore. waxaa la bilaabay in wax la iska weydiiyo baraha bulshada iyo kaalinta ay ku leeyihiin ololayaasha. waa run in baraha bulshadu sahleen xorriyadda hadalka ee dhinaca siyaasadda ana wax ammaan mudan, si haddana waxa uu kuurgal u baahan oofidda xogaha. hindisa tiknoolajiyadeed kasta waxa uu dhaliyaa falcelinno farxadeed ugu soo dhoweynayo, loona arkayo inuu aadamaha xoraynayo, meeshana ka saaraya kala qoqobnaantii. wargeyska la daabaco, raadiyowga iyo telefishinkaba waxaa loo arkayay habab aqoon lagu kororsanayo oo dadku kaga fogaanayaan. diidiiladii hore waxa ay karaar jabtay kadib horumarka baaxadda leh ee tiknoolajiyaddu ku socoto, iyada oo laga walwalo in xogta dadku lunto, dadkana laga macaasho. ilaalinta xogaha gaarka ah iyo kala basarinta arrimaha dadku wax aadamuhu keenay oo muhiim ah. haddii aanay jirin lunsiga xogta, qofku ma noqdeen wax la dhaleeceeyo, sababtoo ah lunsiba ma jiro oo ma jirto xog dhowrsan oo qof gaar ahi xaq u leeyahay. kooxaha dimuqraadiga ah ama sheegtaa waxa ay wadaagga arrimaha guud iyo ka qayb qaadashada u arkaan arrin togan, si haddana waa wax ku xidhan duruufaha bulsheed iyo siyaasadeed ee ku xeeran baraha bulshada iyo warbaahinta. muddo dheer ka hor baa la qiray in warbaahintu kaalin leedahay ilaalinta nidaamyada dimuqraadiga sheegta, oo ay leedahay kaalin dabagal iyo korjoogtayn madax bannaan. waxa kale oo jira dhaliil ah warbaahintu u hoggaansami karto dana kaga xidhan kooxaha talada haya. sidaas darteed madax bannaanida warbaahintu mar kasta way xadidan tahay, xataa haddii cid gaar ahi ay leedahay. bulshadu waxa ay bilowgiiba tartan galeen warbaahintii soo jireenka ahayd. warbaahintaasina waxa ay isku dayday baraha bulshada laftooda u adeegsato meelo ay dadkii u marto. se baraha bulshadu waxa ay noqdeen meelo sidooda looga helo warka iyo xogaha, waxaanay soo jiiteen dadka inta badan oo haddii ay ka madadaalo badan tahay jiilka dambena la jaan qaadi karto. sidaa oo ay tahay warbaahintii soo jireenka ahayd meesha kama bixin, sababtoo ah shaqadeedu noqonaysaa kala hufidda xogaha lagu soo hurgufayo baraha bulshada iyo meelo oo doonto wixii run ah. marka laga daalo xogaha aan rasmiga ahayn, waxa ay warbaahintu u baahan tahay in dib u cusboonaysiin lagu sameeyo ma ay samayso si ay uga badbaado duufaanta baraha bulshada. baraha bulshadu waxa kale oo ay warbaahinta kaga adkaatay soo jiidashada xayeysiisyada iyo ogeysiisyada shirkadaha waaweyn. muddo dheer warbaahin badani waxa ay ku tiirsanayd dakhliga ka soo gala xayeysiiska, si hadda wuxuu calankoogu taagan yahay baraha bulshada oo dadka intii badnayd joogaan, qiimo ahaana ka jaban warbaahinta kale. tartanka kale ee baraha bulshada iyo warbaahintu waxa uu ku sal leeyahay in dadku aad uga gaabiyeen la socodka wararka siyaasadda. waxaa hoos u dhacay dadka akhrista wargeysyada daabacan, dadka raadiyowga ama telefishinka war ka doonta, se waxa ka sii yar dadka baraha bulshada u soo gala in ay warar siyaasadeed ka akhristaan. baraha bulshadu waxay u sii xuub siibanayaan bara lagu madadaasho mawduucyo kale oo badanna laga helo. bilaahi tawfiiq.